waddankii Jarmalka ahaana balaa ka taagan daahiro jarmalka meel bala u taagan jarmalka dadka hala dilaalay inta meel la soo fariisto waxa soo qalad ma niyahow barnaamijkii hadda salaamaya soo dhaw aye badrol waa ka qaaday Jarmalka 30 daqiiqo hor daahiro dhigay aan daawaday ilaahay baan ku dhaartay waxa meesha aan ka arkay horta wax qurux badan ma ahayn waxa lagu bilaabay horta Yacquub Siyaad sawirkiisii oo tuuta wata koofiyadii aan xira jiray 50 cent madaxa ugu jiro AK47 gacanta ku wata afar booshna xabad ugu xiran tahay waxa lagu bilaabay marka in ka badan 16,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah niyahow horta ninkii saaxiibka Yacquub Siyaad lagu bilaabay oo tuuta wata koofiyadii u xiran tahay oo waliba ahayd markuu lascaano tagay dagaalkii 2023 qori ka ah iyo dhowr boosh xabad ugu xiran yahay marka warbixinta waxa lagu bilaabayaa nin Afrikaan ah oo kamid ahaa dadkii burcadbadeeda Soomaalidu ay afduubteen kadib waxa la leeyahay ninkan wuxuu kamid ahaa burcadbadeedii Soomaaliyeed dadkii afduubatay maraakiibta afduubtay isaga iyo dhowr kale oo ajaanib ah waxa la tusinayaa marka sawir ba telefoon laga tusinayaa Captain Ayub oo dhar casaan funaanad guduud iyo shaar guduud iyo maqaani wato baa la tusinayaa waxa leeyahay ninka ma taqaan wuxuu leeyahay marka ninkan si fiican baan u garanayaa dhalinyaradii annagana afduubtay ee haystay ninkii ugu yaraa ugu da'da yaraa horta xilliga ahaa hadda yaraada muxume wuxuu ahaa nin marka uu hadlayo amarkiisa la qaato macnaha da'diisa iyo amarka uu bixinay aan islahayn dhibaatana loo geystay waxaana loogu hanjabay in la dilayo marka ninkan si fiican aan garanayaa buu yiri ninkan dadkii na haystay burcad ahaa ninkii ugu yaraa buu ahaa kadib ninkii waa laga gudbayaa markii laga gudbo wariyihii magaciisa Jamaal muxuu ahaa wariyihii shabaabka magaciisa muxuu ahaa Jamaal Cusmaan baa marka la wareysanaya waxa la leeyahay Captain Ayub aqoon ma u leedahay oo ma taqaan wuxuu leeyahay Captain Ayub waa sax wuxuu kamid ahaa burcadbadeeda madaxa gacmaha saarta markuu ninkii wariyay weynaa oo u qiray Jarmalkii in Captain Ayub uu ahaa burcadbadeed wuxuu leeyahay waa sax ninkan waxa uu sheegayo waa sax Captain Ayub burcadbadeed buu ahaa marka aniga ma aqaan wariyay Jamaal meesha uu ka helay akhbaarta inuu Captain Ayub burcadbadeed ahaa hadda wariyuhu daahiro waana taqaanaa waa nin Yurub oo yani adduunka oo caan ka ah oo inta badan nin aad loo jecel yahay waa ma fahanti waa ninkii shacaleer ergowina wareystay inta markuu sameeyo baa waxa marka lagu qabanayaa ilka case oo maskaraati u xiran markii xafladii hadda hor ma xasuustaa waagii galmudug iyo Puntland ah xafaltamaynayo annaga iyo Ayub Kaarlo iyo CK iyo aan kaasal ku qabsanayna xafladda iyaga iyo Shiina culay inay u imaan jireen oo aan xafaltami jireen wax xasuustaa waxaa lagu qabanayaa marka ilka case finaan ilka case oo maskaraati madow wato oo la soo dhaweynay elboorka Captain Ayub ku soo dhaweynay waxaa lagu qabanayaa marka Captain Ayub oo laba gabdhood oo Soomaali oo iyagana reer Germany reer Hamburg kala iyagana dawladdu dabagal ay ku haysaa qof kasta ee marka Captain Ayub la sawirnaa oo hadda la rabo in la baaro baa gabdhahaas lagu qabanayaa kadib waxa la leeyahay Captain Ayub nooca buu ahaa wuxuu ahaa nin burcadbadeed wadankan buu yimid Hamburg buu iska dhiibay qaxootinimo dalbaday sharciga waa loo diiday sidaan waaye kadib waxa lagu qabanayaa isaga ma xasuustaa waagi sheego General Sheego la xirayay soo dhaafka idin hubkan idin gadaya waxa xasuustaa waa lagu qabanayaa isagoo dhahay $20,000 baan bixinayaa madaxa gacmaha si saarto waa naxay lugaha ilaa hadda ay jareynayaan adan waxa dhacday sidii baashi loo waday baa waxa la geynayaa isagoo gaari cabdibila ah oo 200 oo qofood ay saarayeen Axmed Food Cadan dhinac ka taagan yahay markaas aan saaxiibkii Axmed Food Cadan gurigiisa biyo u galeen caawa Axmed Food Cadoolaas caano taagan oo Captain Ayubna garbaha iska haystaan oo reer qaato wadna soo dhaweynaya lagu qabtay waa laga faaloonaya waxa la leeyahay ninkan dagaalkii sokeeyay gobolada waqooyi ka dhacay oo ay ku dagaalamayeen Jarmalku waa sida ay leeyihiin afka marka idin fasiro maleeshiyaad deegaanka u dhashay iyo dawlad goboleed bay marka leeyihiin regional government ma fahanti oo ay Soomaaliya marka kala jeedaan ayuu taageeray oo ay ku dhinteen boqolaal qofood oo ay ku barakaceen 10,000 in badan intaan ay ku dhaawacmeen
intaas sida loo sii wado bay bahashu waxay gelaysaa marka hay-ad Soomaali iska leeyihiin oo saako la yiraahdo oo Jarmalka dhalinyaro degan oo Yacquub Siyaad iyo Captain Ayub marti qaaday oo iyaga naftikooda la wareysanayo leeyahay nimankan maxaa idin keenay sayd xiriir ku yeelateen isagoo markaa yacni wiil yaro groupka ka tirsan oo faananayo leeyahay ninkan wax badan oo naga saaciday warkayaan kugu sii dheeraynay ما هو صح شغله صح داعي صح ها marka inta markii la yiraahdo waxa la geynayaa marka wariyaashii maahan ciidan wariyaashii TV-ga Jarmalka daas erasta anaga bil walba waxaan laga qaaday 10 euro oo qasab ah TV-gana naga qaaday TV-ga Jarmalka iska leh waxa qasaba qof kasta ee Jarmalka ku nool bil walba 10 euro bixiyo kadib waxa la geynayaa Yacquub Siyaad waxa la leeyahay marka Yacquub Siyaad oo isagana marka dhahaya dila waa naago xataa dumarka uga fayo wax badan adiga hadallo aad yani lid uga ah sharciga Jarmalka qofka xootiga ah saaxiibka Yacquub Siyaad maanta asagana la hadlay waa la gelinayaa isla markii wariyuhu wuxuu leeyahay waa la ogeysiiyey Düsseldorf meesha uu ku nool yahay magaalada sheegeen booliisku waa la ogeysiiyey booliiskii Düsseldorf la ogeysiiyey governorihii magaalada la ogeysiiyey Yacquub Siyaad oo isla markiiba waxa uu wariyuhu sheegay in la kansalay sharcigii Yacquub Siyaad waa la kansalay waa la kansalay wariyuhu waa sidii uu leeyahay isla markii waa la kansalay waxaa la kaloo la kansalay buu leeyahay in Yacquub Siyaad uu ka baxo Yurub ama Jarmalka inuusan micnaba laboor ku yaala ama tareen ama meel dawlad iska leedahay anywhere oo Yurub iyo Jarmalka ah inuusan Yacquub Siyaad ka dhoofi karin ama uusan ka bixi karin sheekadu cabaaray sii soconaysaa marka ilaa iyo waxaa lagu qabanayaa dhalinyaro badan oo waxaa lagu qabanayaa marka shaashadu ay soo qabanayso Cabdulqaadir Boos baa lagu qabanayaa geemka markii la ciyaarayo hawiyada aragti isku caynayeen geemka lagu qabanaya Cabdulqaadir Boos oo hawiyanimada ku baanaya ninkii saaxiibkii Captain Ayub daaroonimada ku baanaya iyadoo meesha giftiga la isugu dirayo macnaha rag badan oo Jarmalka jooga ayay kaamiradu qabanaysaa oo saaxiibkii Axmed Fuucada kamida waxa kamid ah yar ma jeerteen oo isagana Jarmalka ila degan oo ina fagaaramay mas ina fagaasi shaashadu qabanaysaa saaxiibka ilka casaqays bi qabanaysaa marka labada nin ee caawa la soo qaatay nimanka kala kaamirada un baa qabanaysa Axmed Fuucada kale isagoo meeshii joogay kaamiradu qabanaysaa laakiin labada nin ee la soo qaabtay la soo qaatay waa labadaas waxa kale to be continue waaye waxa kale la soo qaatay fiidiyoogii ugu dambeeyay Captain Ayub uu soo galiyay oo uu lahaa Yurubay ma nabadba ama Yurubaan imid wuxuu leeyahay markii wariyuhu Captain Ayub wuxuu leeyahay Yurub haddaan soo galay Yurubay ma nabadba isagoo fiidiyoo aan ka soo duubay isla markii waxay ku qabanayaan marka qoraalada laamiyada ku yaala waa aragtay magaalooyinka qofka markuu galay inta kiiloomitir u jirto Faransiiska marka saaxiibow nimanka saaxiibadii Allah oo dhib yareeyo hadda waxa ay sheegtay wariyuhu in Yacquub Siyaad ay waceen inay ballan rabeen in la qabsadaan inuu ballantii diiday inay qoraal u direen inuu qoraalkii diiday sharcigiisiina ay kansaleen marka saaxiibka Yacquub Siyaad markii waan wareystay isaga wuxuu ii sheegay dhibaatada iyo waxa hadda waxaan dhan in uu ka dambeeyo Saciid Cabdullaahi Dan iyo Puntland ومعقول ومعقول حتى وحي شيغيا وريو وحي شيغيا حتى يعقوب Siyaad in lagu xukumay xabsi 10 sano ah Soomaaliya oo ku xukumay yahay maamulka Puntland ku xukumay waxay sheegayaan xitaa intii Puntland ay ahayd Yacquub Siyaad inuu taageeray argagaxiso wariyo uu sheegayaa marka hadalka waxay ka soo xiganayaan mar walba waxaan dareemayaa in Soomaali laga soo xiganayo waliba dad waaweyn maran isridaahir cali Soomaali meesha ku jira maya yani waxba ka moog laakiin ana waxa maqla kaliya arinta Captain Ayub waxaan ku weydiinayaa marka anaga halkaa waxba iga soo galay hal dhaweeto adiga iyo Jamaal inaad holan ku shirteen oo aad noo sheegto tiri shir adag baa jira intaan arrintan soo bixin arrinta ayada kamid ahay oo iga wareystay maxkamadan oo la bogaadiyay oo laga yaabay Idris hadda wuxuu noo sheegay inuu qiray ninkan uu ku jiro dadka kiiskan ku oogay ninka asaga sheegay inuu burcabad yahay asaga Captain Ayub dadka sheegay jiray fiidiyoyaasha heli karaabe dib loo raaco madaxweyne Badraho waa maqlaysaaye
shir degdeg ku dhawaaq daahir weydiinayaa weriye jamaal iyo adiga markii u dambeeyay aad kulantay goormay ahayd aniga asaga waxaan kulanay intaan ku sheegayaa wallahi hadda rag badan ay soo wacay rag badan ay igu yiri saaxiib arrintani waa la qabiilay waliba arrinka daahira ku jira waxa ira marka nin daahir xaasinimo nooca ah kuma aqoon waxyaabahaana waxaan hore ugu aqaanay ma laga yaabaa isaaq maybe isaaq inay taa laga yaabaa maxaa yeelay kabtan ayuu waagii uu qorayga suuga ah u fuulayay laascaanood waan ogaa dhalinyaro isaaq rabaan in maya dhegeyso niyo dadkan waxay rabaan dhubuq niyo qofkan isaga qaatay qoryahan iyo balaayadan iyo saas ku xambaaray isaga dagaalka dadka ka yiri isaga waxaan raadsaday wuxuu qofka raadsaday meel leeyahay ma taqaana ilaahay kugu sabadiday wal rufiyaana dadkan maxay waxaan ka falayaan waxaan iska dhaafaan fiiri ilmahaaga ma korsatid shaqada professional ma u qabsatid dadka waxa waala community iyo qabiilkii awaal waxa lagu leeyahay keep going صح cabsi fridday ilka laga soo hindisay waxa lagu leeyahay war anaga lama soo hindisin qabiil waa nawaalnina كاميرا وقت قفك ضد ودمada qurbaha reer galbeedka boolisigooda haduu aqoon hada daayirka ayaa ka faata baqadan xamar markuu tago meel digir loo cunayo ma futagaya abdi bila iyo balaayo suuq markaan la kulmay jamaal la kulmo wakaasa 18 bishii lixaad bishuna maanta waxa ay tahay afar caaws oo galeys afarta bishii toddobaad waa waxa laba isbuuc meelaha ah daahirow saaxiibow ninkan wuxuu cadeeyay uu marqaati ka noqday in Captain Ayub uu yahay burcad badeed su'aashaas markii la weydiiyay wariyuhu af English buu ku jawaabayaa waliba markii la wareysanayo oo Jarmalka ay wareysanayaan wuxuu joogaa London waxa uu leeyahay uu ku marqaati furaya Captain Ayub wuxuu leeyahay ha waa sax Captain Ayub waa burcad badeed marka ninkan 18 bishii lixaad kulanteen ma laga yaabaa daahirow waxyaabo badan inuu ka wareysan ninkan oo ama akhbaarad badan aad siisay oo ku saabsan dhalinyaro badan oo TikTok jooga oo qaar gacan ku dhiiglayaala qaar burcad badeeda qaar dad soo afduubtay ma laga yaabaa waxyaabo noocaas inuu ka wareystay